Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Axmed Abshir Dhoore Axmed Daljir. Maantay oo ay taariikhdu tahay 1 Luulyo 2020 waa sanad guuradii xilligii xornimada ee labada gobol ay isu tegeen. Inkastoo lagu jiro asbuucii xorriyadda oo ay tahay maanta maalintii ugu dambeysay, haddana barnaamijkan maanta aan ka hadlayo wuxuu yahay ciwaankiisu Soomaalidu kama faa'iidaysato haldoorkooda. Rumaantii marka ugu horreysa waxaan si gooni aan u xusayaa isu taggii labada gobol. Maanta waxaa ka soo wareegtay 60 sannadood. Maantana Soomaaliya meeshay taagan tahay waan arkaynaa. Aan ugu horreysiiye maasadan yartaa oo la yiraahdo Luulyo. Bisha Luulyo waa 1 bishaaraa dilaacdo waa tii la isu soo baxay. Taariikhdeenna baaldaha boqorradii ka geliyo cadowgeenna baacsaday. Qof walba beeyaan lehe Soomaali bilicdeed nimankii badbaadshaa baalka dahabiga mudan. Axmed Gurey bidhaantii Amxar waa ka baqi jiray. Sayidkana bulhaantii gaalku ma bardhigi jirin. Wixii hore ka soo baxay maanta waa bil gooniya xornima bul soo tiri. Iswaayeel baa bidhaamisay boqortooyo weeyaan magacyadan bilqeyrka. Calankii badbaadiyo durba waa kan soo baxay. Banaadir xeebaheediyo bartamaha Hargeysiyo bari Ismaaciil dhabiye ilaa Luuq baraawiye mar xara dheer. Calankaa babanayo bilicdiisu waa caan. Bidhaan roob cirkoo xiran xidig beerka loo dhigay. Ama buluug casaan loo shanta lagu beeyaanshe. Cadowgana baroor diiq mid baahiyo ku raagtoo bishimuhu cadaadeen. Mid bidaaru leeftoo bahdiisii ka soo tegay. Mid baalootadeeniyo waran beerka loo dhigay. Dhulku waa barwaaqo baliyada xareeduna meel kastay ka buuxeen. Dhirtuna waa bislaato ciidda meel bannaan male. Shacabkuna barwaaqiyo baraaro ku noolaa. Afrikaanka badidii gumaysiga kamay bixin. Kuwa nagu baroortoon la baadi goobnay baa jira xornimo ay ka baqayeen. Dhulka baaxaddiisa iyo bilicdiisu waa caan. Bad baa nagu wareegto baahi sheegan mayne. Rabbiyow bil khayr laa maalintaas bidhaantee Soomaali badankeed maanta baabaaweeye barakada ha nagu lumin. Diintu waa barwaaqo gaalaa baacsanaysa awooddooda baabi'i. Hubka lagu badraamiya diyaaradaha buubo muslimkama baqanaya allow baraf ka siiyeel. Falastiin badbaada Iraaqoo bidhaan wacan. Soomaaliyo barwaaqaa oo xaqa lagu baraarugo Ilaahow baryahaygu basiid weeye agtaadee baahideenna dabool. Ilaahow bishan maanta mid balaayada reebta oo xaqa baaxad u yeesha oo Soomaaliyo isku beera wanaago u bilowdo beledkeeda dhex joogta basiid weeye agtaadee baahideenna dabool. Xornimadii balla dhaaftay oo konton sii baxsanaysa aan baadigoob ku hayaay Rabbiyow bilqahaaga ku badbaadi dalkeenno barakadeenna ha qaadin basiid weeye agtaade baahideenna dabool. Barnaamijkii haddii aan u soo noqdo ahaa Soomaalidu kama faa'iidaysato haldoorkooda. Baliyaa Soomaalida oo ah haldoor waa su'aal uu isweydiinayo qof walba oo Soomaaliyeed. Sida aan arkaynaba innagu waxaynu nahay dad muslimiina. Waxaa nalagu tilmaamaa 100% inaan nahay dad isku dhaqana isku diina isku af isku midaba yacni wada dhashay dhalyo rasmi oo ay ka dhaxayso. Haddaba maxaana kala fogeeyey? Maxaa dowladnimadeennii ay u hana qaadi laadahay? Haddaba dhegayste daawade waxa ay u hana qaadi laadahay si wanaagsan ii dhegayso. Waa inaan haldoorkeenna inaan ka faa'iidaysan. Waa kuma haldoorkeennu? Haldoorkeennu waa ninaan ahayn nin owrkiisa ku kacsada qabiil. Haldoorkeennu waa midaan ahayn mid shilimaad raadinaya. Haldoorkeennu waa mid aan ahayn jahli. Haldoorkeennu waa mid aan ahayn dadka Soomaaliyeed kala xima. Haddaba Soomaaliya haldoorkaas maanta ay u baahan tahay oo aan intaasnaba ahayn ma ku jiraa qarniga 20? Waxaan leeyahay waa ku jiraa. Waxaa ka buuxa Soomaali Cumar bin Khadaab oo kale. Laakiin ma aha kuwa iyagu u dhuun dalool siyaasadoo raba inay siyaasadda isu soo sharaxaan. Laakiin innagu waxaan nahay shacabkii Soomaaliyeed. Dadkan isu soo sharaxaya oo qof walbaaba oo u soo xusul duubayo inuu mar uun kursigaas ku fariisto ama uu ka agdhow dhowaado si shilimaadkii yaryarka ahaa oo meelaha ka soo dhacayay ay waxuun uga soo gaaraan. Dadkaasu ma yihiin dadka Soomaaliyeed oo maanta tabaalaysan dadkii wax u tiri lahaa? Jawaabtu waa maya. Waayo cidda wax u tiraysa dadka Soomaaliyeed. Haddaba dhegaysta si fiican ii dhegayso.
inta aan horay u soo sheegay ayaa astaan u ah. waa dad ilaahay dartiis doonaya inay dalkan u badbaadiyaan. waa dad maaragtay eex iyo qurun ay maaragtay ay ka fog tahay oo ilaahay dartii isla ilaahay ugu dhowaada. haddaba bal aan waxuun ka xuso. waxaynu qiimeynaynaa dadka Soomaaliyeed yaa tacliin uu wax ku hogaami kara leh, mid diiniya, mid maadiya, yaa fahmi kara gaalada khiyaanadeeda, yaa fahmi kara Soomaali marin habaabinta iyo shirqoollada loo maleegayo, yaa yaqaana taariikhda islaamka. haddaba dhegaysta, meel dheer ha ka raadin, waa taqaanaa, saaxiib baadna la tahay qofkaas iyo shakhsiyaadkaas. rumaantii aniga ka Axmed Daljir ahaan muddo hadda 10 sano laga joogo, maskaxdeyda waxaa ku dhex wareegayay maalin walba hal sawir baa ii soo baxa, hal shakhsi baa ii soo baxa. qofkaasi wuxuu noqday saaxiibka adduunka igu qaalisan bilaadanka qarnigan hadda la joogo ilaa hadda. basharka bilaadanka igu qaalisan oo runtii mar walba oo kelmad uu leeyahay aan maqlo qalbigayga ee dhaqaajiso. haddaba waa maxay sababtu u dhaqaajinaya? ama qabiilkayga amaya? anugu gobollada dhexaan ka soo jeedaa, isaguna wuxuu ka soo jeedaa waqooyi. laakiin waa maxay waxaa ii soo jiidaya? waxaan ka dhehday cadaalad baan ka dhehday, waxaan ka dhehday xigmad baan ka dhehday, waxaan ka dhehday inuu dadkan qof ilaahay uga baqayo uu yahay. haddaba qofkaasi ma yahay qof doonaya inuu isu soo sharaxo ama maanta aqbalaya haddii ay dad dhahaan isi soo sharax? haddaba ma aha nin isu soo sharaxay, ismana soo sharaxi doono noloshiisa. haddii la yidhaahdo isu soo sharaxna ma aha nin aqbalaya. laakiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan haddii ay wada taageeraan oo yidhaahdaan adiga cid aan ahayn ma doonayno inay dalkan maamusho, xilligan hadda la joogo marxaladan adag, wuxuu ku qasban yahay isagiyo ilaahay nooga baqaya inuu hoggaanka qabto. eexda, musuqmaasuqa, dhibaatada Soomaaliya haraysay, waxaasoo dhan way baabi'i doonaan. haddaba dhegaysta, ku dheeraan maayo. Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal qof badiyana ma uusan dhammayn, qof 4 kelmadood yirina waxba kama uusan tegin. waxaan idinla wadaagayaa shakhsi walba oo Soomaaliya, shakhsi ku weyn qalbigiisa. waa kuma? waa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil. ninkaas waa nin aqoon diiniya leh, waa nin aqoon maadiya leh, waa nin yaqaana gaalada khiyaanadeeda, waa nin yaqaana meesha laga yimid, waa nin yaqaana taariikhdii islaamka oo dhan, waa nin yaqaana waxa inaga naloo abuuray, waa nin yaqaana khayraadkeenna, waa nin yaqaana sidii uu ummadda Soomaaliyeed dad walaalaha isu dhow oo maaragtay ay u noqon lahaayeen waddadii loo mari lahaa. run ahaantii ilaahay wuxuu ku garab siinayaa wax walba oo wanaag ah oo maaragtay ii sheeg shacabka Soomaaliyeed ay rabaan haddii ay doortaan hogaamiyaha noocaasa. haddaba waxaan isweydiinaynaa, ninkaasi nin siyaasad raba ma ahee, innaguna waan dareemaynaa wanaaggiisa iyo qiimaha uu leeyahay. waa maxay sababta aan ku kasban karnaa inuu hoggaanka dalka uu qabto? waxaan ku kasban karnaa khulafaa raashidiin. ma jiraa nin isu soo sharaxa oo yidhi xilkan aniga ha lii dhiibo ridii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ka bacdi? maya, ma uusan jirin. dadkii ugu wanaagsanaa ee meeshaas qabtay maxaa lagu soo doortay? waxaa lagu soo doortay inay ilaahay uga baqayaan shacabka muslimiinta ah. dhegayste, waxaan kaa codsanayaa inaad gaarsiisid inta kuugu jirta, waayo waa waajibna wada saaran inaan dalkeenna, diinteenna, dadnimadeenna, cirdigeenna inaan ilaalinaa. run ahaantii nama anfacayo nin isu soo sharaxaya, nin usoo xusul duubaya inuu madax dalkan ka noqdo nama anfacayo. laakiin inagu waa inaan garaacnaa albaabka guriga uu ku jiro qofka inagu aan doonaynaa. haddaba waxaan kaa codsanayaa inaad sheergelisid barnaamijkan oo aad gaarsiisid dadka kuugu jiro oo dhan si aynu danaha Soomaaliyeed uga shaqayno. waan rajaynayaa
in insha allahu tacaala xilli ay noqotaba hoggaanka dalka ay qaban doonaan dad u qalma. cadaalad darradan dalka baahisay, dhaqaalahan la lunsanayo, shacabkan aan loo aabayeelin, baahidan iyo abaarahan iyo kulaylahan iyo dhibaatadan shacabka Soomaaliyeed soo afjarmayso. insha allahu tacaala way soo afjarmaysaa. haddaba dhegeyste, adigu ha ka baqiilin inaad gaarsiiso walaalkaaga kale. ballanteenu waa aynu dooranno cid u qalmata kursiga. gabaygan waxaa la yidhahdaa magaciisa doorashada bedela. waxaan ku cabirayaa hoggaanka wanaagsan, qiimaha uu leeyahay. wuxuuna u dhacay sida tan: diiley anaa waayadan laygu daabacaye, ma duleeyo maasada khiyaal diiran baan ahaye, docno uma xaqliyo oo xaq baan daadaha leeyahaye, dal jir baan u ahay gacaladay eebayey diraye, dhegta dooja anuu ruux durayn daaci baan ahay, darajay u leedahay qalqiga diilka maasadu, dad islaama oo wada dhashoon luqad kala doorin, dayma aragti dhaqan iyo dadnimo midabna loo dooray, deegaanaan dulqaad iyo asluub deeqsinimo taama, danta guudna dastuurkii alliya dhaqan ku daaweeye. intaasoo isdaba taal intuu daa'imiina siiyey, dowladnimo wax noo diiday aan idin dareensiiyo, oo dowladnimo wax noo diiday aan idin dareensiiyo, dana gaara weyoon shacbigu diidin weligiisa, doorashada ayaa naga qaldanay samahayaa diidan, degmadiisa ruuxii yaraa waan ku darajeeyey, adaanku dagaalamahayaa nolol addoonkaaga, dullina qaadan maa oo kartaa laygu daabacaye, dusha uga qor magacayga aan doorkan soo baxee, maalintii la doortuu arlada deyr ku xirayaah, derisku ka ootaa intay dana wadaagaane, haddana wuxuu dagaal ugu jiraa duudsi qoom kale dhulkoodu daraaba qalqiga yuu ka didiyaaye, dadkiisuna ma diidaan marqura danafyadiisaasi, dirac baa inoo kaca ayay duurka mariyaane, dulmanaha ilaah baa u maqan ciilna waa degaye, adna deyrka joog oo ha bixin way ku dilayaane, ayaa laabta lagu daabacaa waadna durugtahay, danna kaama laha maalintay diifu kugu taale, meeshuu degi lahaa wuu diyaar saacaduu dege, adiguse qabiil kugu duroon diiran weligaa, mid kaloo kasii daran yaad haddana daaw u aragtahay, dibin daabiyo mooye adaan daawgal ku kicini, doorashada bedela yaan ibliis daaqad kaa furana. oo doorashada bedela yaan ibliis daaqad kaa furana, qaran dumi dalkeennii burburay ehelayaa deeqa, dakanaha xun yaa daacado naga daweynaya, dabka yaa baktiin oo qalqiga nabad la doonaya, dadku yay u siman yihiin oon xaq kale duudka naga saarin, dallaal waaxuye yaa dal iyo duunyaba ilaalin, jahli iyo dagaal iyo balyaa gaajo nala diidan, samirka yaan ka didin maalintii laysu dana sheegto, ha la doorto ruuxee yiraa kii dadnimo dhaama, ilaah daraja sii kii qalbiga eebba uga duubay danta shacabka mooyee wax kale diiday socodkeeda, duunyana aan raadina jannada daa'im filanaya, aadan noo ah soomaaliyey doorkan saan qabe, ha la doorto shacab yahow mar kale yaan dib loo noqone, ha la doorto shacab yahow mar kale yaan dib loo noqone. dhegeyste daawade, waajib bay kugu tahay inaad sheergelisid kilibkan, waayo danta Soomaaliyeed inaan ka wada shaqeyno waa mid jiilasha dambe anfacaysa iyo inagaba insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.